بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كذب واحد سمين دولا واحد يقول في فرنسا دولا هرت كل كان ما قيمها فضل آيات القرآن محمد بن آخر دولا شان الحادث. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إلهي نوقف آيات القرآن في آخره. سجن إلهي كاب. مركا كل هذا الكبدين معي. عن كل سورة دولا قدوميها أوركا الشيخ محمد يوسف صافي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo bogaadin siinayaa guud ahaanba odayaasha iyo dadka deegaanka ilaa Hargeysa taxan ilaa Ceel Sheekh oo ilaa shalay ku soo dhex jirnay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta quruxda badan ay noo sameeyeen. ma aha markii ugu horeysay in hortayda soo booqanay ama aan idin nimid balse laga yaabaa in istaadaan ma waxqabadkoodii ugu horeeyay Ceel Sheekh ba waxqabadkan ururku kuma koobna Ceel Sheekh wuxuu ku kooban yahay guud ahaan deegaanka ka aradan ee ka maqantay baahiyaadka asaasiga ah ee ilaa imika aad moodid inay gaar uga soocan yihiin deegaanada kale. ururku sidoo kale Somaliland jirtay aan helin baahiyaadkii asaasiga ah ee lahaayeen xaq u lahaayeen. laba arrimood ba xaq bay u leeyihiin midna yaga kale oo meel kale ka yimid waxna laga sugin waxaan ku wareejinayaa sawir kulay inta halka taala waa saambulena in kale oo badan way taalaa sawirkaas oo ugu talagalnay in loo dhiso dhismaha carruurta ay wax ku barato oo ku meel gaara inta iskuul laga helayo. waxaan ku wareejinayaa gudoomiye ku-xigeenka Cabdi Cumar oo maadaama uu heer tuulihii maqan yahay بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا ما أنت وحنا حلقة من فرحة iyo maxaan ku dhahay iyo ururka dhalinyarada ee noo yimiday ee soo taalifiyay inay deegaanka wax u qabtaan. waa maxadintii waana idinka guddoon waxaan leenahay baahida iyada intani maaha way ka doorsan marka waa horumarin waan idinka guddoonay waa mahadsantihiin waan idinku soo dhaweynaynaa ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يا سؤال قابل أنا كجيبني يا قلت أفريقيا لواتن سنة وبرحلت يا شيخ ضب الله مضحي وين قصوا مريض ذكر هالسنة إن شق قبل لوجو مهما قبل بان كيك نتوي أويدي قبل يأكل الله هاي وأويدي متباي لو حبا وين والقوم هيرين يا هذا جنب البيت هدي وقولوا تنايم ما أنت وتدم بالهيد من هوري أنا دافع الدم بالهيد وعلينا هاي ولا رجال ورجلا هذا ورجلا هذا هاي نقديكو أنا وكل كان شخصين أي دلنا يهوري نوجد جريت وحلا وحق علينا هاي وأسنج هاي وعاني لي مرحبا كل ودنك يا هاي عدد القرآن كها ونجسول وين عدد القرآن كوا ولا نوسجين ونيجا قدامي ولا ريدنا بقى جرجاري نوكين يسينا هو أنت ويكفر بلين إنك إني تلا أنت ما كنت سقوط يعني نمال السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وحوي إلما إنت تبغى صلاتي وحوي باريا
horta dad wanaagsan baa siiyey dhalinyaro wanaagsan oo dadkii ku shaqatay ayaa saakaal ka muuqda waanu idinku farxnay maayo wanaag adeeraya haddaa noo shaqayseen annagu waanu gaboobey waxaanu soo wadnay wixii isla baabee saaka ceer sheekh deegaanka ceer sheekh waanu marka u shaqatay u dhashay ahaydeen waanu idiin ducaynaynaa urur wanaagsan baa noogu timaadeen barakaa la hidigeli ilaahay caafimaad ha haysi inama wanaagsan oo quruxdaa noogu timaadeen waanu idinka guddoominay adeerka saaka waxaanu idinka doonaynaa inaad sidaa maanta u timaadeen wixii ceelsheekh qabta waa taa u shaqad sheegteen waa laydin sugayey ilaahay idinkeen wixii ay u baahantayba inay u qabataan ee qaban kartaaba ayaanu idinka doonaynaa sharafkaa la timaadaan dadka waa la dhiirigeliya haddii ninku hadduu meelu yuuro waxba ma arkayade annana wixii aanu hayno itaal baanu weyne waxba ma hagrayno dadkani waa iska dalan bismillaahi raxmaani raxiim horta hadalma hadhina ducaa hadhay aad iyo aad baa idinku mahadnaqaynaa sida odayaasha reerweelahay idinkuna ducaynayna masale kowana waa la timaada masale koowa waa la timaada ama waxaa qabto ama yuu qabanaya nin halkan soo maroo yidhaahda waxaasaan madax baan ahay waa la arkay laakiin urur yidhaahdaa urur baanu nahay oo urur caynkaas baanu nahay awooddeeduna waanu wadaynaa kuwii horreeye baa tiri ilaahay idamkii hoggaan khayr qaba allah idinka dhigo sidaasaanu annaguna odayaashii iyo cuqaashii haddaanu nahay idinku soo dhaweynaynaa guddidana markaa waxaa welisana mara kaga nahay waxay ku qabtaan iyo waxay ku daraana ayaga ruuxdheeray mid weeyaane waxaa la yidhi haddii baarqablada lasoo siiyo dhalwanaa kufaan mali baa la yidhi haddii dhulka u dhalateen oo cismaan xuseen tihiin adaa soo qabataan dee dhulkiinni baa ku tarteen oo qodob waxa weeye haddii qof wax badanoo soo kor waxa weeye cismaan xuseen oo ururkiina iminkaa samaysay kii horta kii jiray sidii horeba loo yidhaha waxaana weeyaan oo labaysa dee dhulkiinniba horta ayuu dhulku weeyaan ama ha yaraada ama ha badnaada gacaniba meeshay aa gaadho ayay xoqdaa annaga ruuxa iyagu ma dadaal maanaan dadaal badnayn waa baa la ooda kanoo kalaa la ooda oo hoostiisa wax dee lagu dhigtaayo looxaan la dhigaayo in kursiyaal la keenaayo miya wax laynoo keenayn unbaa inta badan ay arrimaha iyagu ayagu badnaay deegaan badan oo aad u ballaaranna dee waanu nahay waktiguna kolaaluun buu ku saacidaayo ilaahay wax ku ansixiya tii baad yar moodaa maanta waxaan leeyahay ururka cismaan xuseen aad baan u hambaliyay yaanu soo dhaweeyey sideedabana hareeraha imika waxaanu ka rajaysanaynaa rajo aad u fiican assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ducada aynu aqbo aamiin dadka ilaahay loo soo rogeliyo ilaahay saasar ku bariyo waxa weeye inamada ururka ah ee cismaan xuseen waa loo duceeyey ilaahay ducada ha u taabnay allah ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo kuwii hore u maranaha ilaahay ha ka dhigo hadal badan odhan mayno hadalka murtidiisii deegaanka dale baa dishay odayaasha ay maqleen ummaddaa dishay iyagaa dilay baasha nin aan dan ka lahayna dawlad buu u noqday kuwii dawlad iyo dad u noqday ilaahay ha idinka dhiga idinka aamin kuwii nooleeye ilaahay ha idinka dhiga aamin inay wada lahaadaan baanu doonaynaa dawladda halkaa ha joogta iyada waxba odhan mayno dalku dawlad buu leeyahay sidii u tidhaahdeen waanu ogol lahay wax ka soo horjeeda ayada maanaan arag laakiin qorshaha naga xun qorshe xumadaanu ka hadlayna aadan soofaa la yidhaa soo garanaysa waa deegaanka ka dhiban waxaa kaloo nii sheegayaa bal 6 gooboodda sii wada mara waa halkaa cabdigeedii intoo ka martaan hawlkii iyo intii harsanayd ilaa bildhaalay dawga ka baxaysaa sii mara sidaa iyo intaasaa ambaan u marayna inay iiga egayd inaan idhaahdo tanna markhaataannu ka nahay sidaa caydiid u yidhi in kuwii ugu horreeyey ayagoo waxsida keenay ee soo tacliinta in la nooleeya u damqaday intihiin soo garamaysa tuka badanna ilaahay ha idiin soo dhigo wasalaamu calaykum